الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر تعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عشر كوحو كبلاب مي آيات لبئية طبعا سورة يونس كاملة. suuradda markaad eegto amaba guud ahaan aayadaha aynu marayno arrimaha ay ka hadlayaan waxay u badanayaan dhowr arrimood. waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay uu halkan ku tilmaamayo dabiicata alinsaan aw ilbashar addaciifa, insaanka ama bani aadamkan caalamka ku nool iyo dabcigiisa nooca uu yahay iyo sida uu dee daciif isaga yahay, isagoo indhaku garaadla ahoo marka uu ladan yahayna aan ilaahay garanayn, filkurabi washidda waktiga dhibku uu adkaadana ilaahay garanayo soo noqonaya. insaanka kuwiisii horena inay noocaas oo kale ahaayeen ayaa ilaahay uu xusaya. waxaa kaloo uu ku xusaya aayadaha dambe insaanka dabcigiisa daciifka ah shayga kabaya ama toosinaya inuu yahay waxyigan samaawiga ah. ilaahay waxa uu waydaa masal insaana bani aadamkii marka uu ku dhaco aduru dhibaatadu dacaanaa wuu noo yeedhanayaa lijanbih ay mudajican isagoo dhinaca u jiif aw qaacidan ama fadhiya aw qaa'iman ama taagan falamaa kashafnaa canhu markaanu ka dulqaadno durahu dhibaatada haysata dhibkiisa mara ay istamara calaa xaalihi alawal halkiisii horu ka misaya kaan lam yadcunaa waxaaba la moodaa inaanu noogu yeedhanin ilaa durin masa dhibaato ku dhacday kadalika sidaa kuwaa loogu qurxiyey xumaanta zuyina lilmusrifiin dadkii xadgudbaya waxa loo qurxiyey maa kaanuu yacmaluun camalkii xumaa ay samaynayeen. insaanka inta adduunyadan uu joogo ilaahay wuu inooga warramayaa dabcigiisa, waayo dee cidi kama taqaano ilaahay. rabbi subxaanahu watacaala bani aadamka cid uga macrifo roon oo u sharxi karaysa ilaahay ma jirto. dee isagaaba abuuray oo xaaladooda iyo samayskooda iyo inta oo dhanba ka warhaya. markaa qofka yidhaahda ilaahay baan uga warroonahay bani aadamka dee kama dhagaysanayna xataa isagu hadduu sheegto oo kii ku takhasusay cilmiga ijtimaaciga ama bulshada iyo cilmu nafsiga iyo falsafada waxa la yidhaahdo qiyaadada iyo hogaaminta ummadda siyaasadeeda dadka sheegtay inay ku takhasusaan mid walba ilaahay baa uga macrifo roon subxaanahu watacaala. sidaa darteed ayuu sharxay waxa uu yahay insaankii iyo haalibka xaaladiisa siday tahay. durka iyo dhibaatadu marka ay ku dhacdo ilaahay wuu yaqaanaa. rabbi waxa uu leeyahay markaa bani aadamku wuu gartaa
durkani dee adduunyada durkeedu iyo dhibkeedu waa wax iska koobanba waa adduunyada dhibaato kaga dhacda iyo nafta iyo maalka iyo ehelka waa amni xumo soo gaadha iyo cabsi waa caafimaadkoo ka xumaada waktigaas ducadiisu way badan tahay buu ilaahay iyo baryada way baryay daliil waxay noogu ah faraacinadii waxay lahaayeen nebi muuse ilaahay noo weydii maba iyo abaarta inuu naga dulqaado waa fircoon iyo qoladiisii hadda nimankii quraysh la odhan jirayda rasuul allahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayay iyaguna lahaayeen abaar baana dishay oo kax baanu taaganahay ilaahay aduu wax ka aqbalaya ha naga dulqaade rabbi noo weydii marka isagii oo lijanbi dhinaca u jiifa ama fadhiya ama qaa'imahoo taagan saddexda xaalaba wuu igu baryayaa buu ilahay dee qofka bani aadamka ah ama wuu jiifaa ama wuu fadhiyaa ama waa taagan yahay waa saddexda xaalaba laakiin maxaa dhacay taasoo noqodkaa iyo baryadaa uu ku ammaanan yahay insaanku arrinka se uu ku eedaysan yahay waa tan dambe markii aanu ka dulqaadnay buu ilaahay yidhi dhibkiisii marra xumaantiibuu sii daa'imay waxaana la moodaa kaan lam yadcunaa ilaa durin massa dhibaato taabatayba inaanu ilaahay u baryin ilaahay buu ilaawayaa waktiga uu ladmaadana laakiin qofka mu'minka ahi inaanu sidaa ahayn baa ilaahay u xusay ee waktiga uu dhiban yahayna ilaahay wuu yaqaanaa waktiga uu barwaaqaysan yahayna ilaahay buu yaqaanaa labada jeerba mar walba waxa uu ogsoon yahay nicmada iyo balaayadaba inuu ilaahay keeno isaguna uu qaado marna wuu ku mahadnaqayaa marna wuu sabraya kadalika zuyina lilmusrifiina maa kaanuu yacmaluun musrifiinta waxa loo qurxiyey waxay samaynayeen waxaynu ka faa'iidaysanay aayadda horta shaydaan inuu meeshaa ku jiro insaanka sidan samaynaya inuu shaydaan weheliyo waxa labaadaynu ka faa'iidaysanay xadgudub inay tahay ilaahay oo la garan waayo waktigu addoonku ladan yahay walaqad ahlakna alquruuna buu ilahay yidhi ummadaanu halaagnay min qablikum idinka idinka horreeyey lamaa dalamuu markii ay dulmi sameeyeenay xadgudbeen wa jaa'athum rusuluhum bilbayinaat rusushoodii waxay ula yimaadeen waxyi cadcad wamaa kaanuu liyu'minuu may noqonin kuwa rumeeya aayadaha kadalika sidaasaanu najzi alqawma almujrimiin waliyaha dembiilayaasha baanu abaalinaa sidaas oo kale uma intii kuwaa la halaagay kadib jacalnaakum dadkana waxaanu idinka dhignay khalaa'ifa fi lard kuwa wakiilla ku ah oo camiraya dhulka dhexdiisa min bacdihim ummadaha intii la halaagay kadib xikmaddana ilaahay wuu tilmaamay linandura si aan u eegno kayfa tacmaluun bal waxaa camal samaysaan dabeecaddan xuna insaanku uu leeyahay iyo ilaahay uu isilowsiinayo awgeed rabbi waxa uu leeyahay qaar baa idinka horreeya oon halaagay markaa haddii uu qofku moodayo in adduunyada uu ku waarayo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo dadka uu maamulo iyo maalka uu leeyahay intaa isugu tubadhacsan hadduu moodayo insaanku wax lagu waarayo inay tahay rabbi waxa uu leeyahay sunnada ilaahay iyo qorshayaasha rabbi taas ma ahee waa in ay saba socoto adduunyadu qarni mid kale uu kasii dambeeyo ummad kale ay kusii xigto sidaasay isu weydaaranaysa meel geedi loo yahayna waa inay jirto oo dadkao dhan uu isku gaari doono markaa qaar idinka horreeyay baa jiray oo iyaga qudhigoodu ahaa sida kuwaa laga soo sheekeeyey dulmi bay la yimaadeenoo markaasaan halaagay buu lahay oo dadkii dabcigooda toosin lahaa ee hagaya ergada u ahaa ee rususha ahaa may rumaysanin ee way ka gaaloodeen oo rusushaas waa rususha ilaahay usoo dhiiba cilmiga waxyiga ee dabeecadda insaanka daciifka ah cilmigaa ku toosiya dhaalimiin bay noqdeen mujrimiinna way ahaayeen markaas ummadaasi waxay keenaysaa tartiib maca taraakh ummadaha dee qur-aankaa ka warramay qawmu nuux laga soo bilaabo 8 ummadood ee qur-aanku uu tilmaamo had iyo jeer halaagooda ilaahay waxa uu idinkii waxaan idinka dhigay khalaa'ifa fi lardi min bacdihim kuwa dabadood kuwa dhulka khaliif ku ah markaa halkan waxaynu ka faa'iidaysanay aayadda waxyigani inaanu ahayn keliya mid ummadda ka caawinayo dhinaca cibaadada iyo dareenka iyo xidhiidhka ay la leeyihiin ilaahay oo keliya laakiin uu yahay manhajkani manhaj ilaahay ugu talagalay basharka oo ka saxaya kana toosinaya
dhinac dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid caalami iyo mid qoys iyo mid qof intaba sidaa darteed baa markuu ilaahay uu ka soo hadlay insaanka iyo dabeecadiisii ayaa halkan waxa uu xusayaa sababta loo toosinayaa inay tahay dee waxa weyne looga fadhiyo oo ah adduunyada hogaaminteedii ayaa ilaahay uu ku aaminay waxaana la doonayaa inuu noqdo khaliifatu saalixa hogaamin wanaagsan ee aanu noqonin dad xun sida qur-aankuba uu sheegay markaa dadkan dhulka ilaahay u dhigay labadaa qaybood unbay noqonaya imaa khaliifatu saalix aw khalafun suu ama dad xun bay noqon doonaan iyo hogaamin xun oo shaydaanka hormuud uu ka yahay ama hogaamin wanaagsan iyo siyaasad fiican dad ku socda oo tii rususha ah fakhalafa min bacdihim khalf adaacu salaata watabacuu shahawaat fasawfa yalqawna gaya dad xun baa ka hadhay baa ilaahay u lahaa rusushaa la halaagay ummadaha la halaagay rusushoodii rusushii waxaa kasii wakiil noqday halkoodii galay kuwaa dad xunka ee cibaadada luminaya linandura kayfa tacmaluun markastoo ummada caalamkan ay joogto ha u qaadanin dadkooda hogaaminta haya ama waxna furo waxna u xidha in wax sahlan ay yihiin waxa ay hayaan ammaano weyn baa saaran oo la doonayo siday tahay inay u gutaan ilaahayna uu yihi linandura kayfa tacmaluun bal si aa eegtaan dadkiina waxaanu eegaynaa buu ilahay yidhi si aa sidaa samaysaan camal dadkiina dhulka lagu aamino ee jooga casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun nebi muuse waa sidii uu ku lahaa qoladiisa faraacinada ahaa qoladii faraacinada ka baqaysa ee nebi muuse la socotay reer banu israa'iil ayuu ku yihi faraacinadan waxba ha ka warwarina waa la halaagayo halkooda ayay idin geli doontaan oo ilaahay wuu eegi doonaa bal waxaad samaysaan waidaa tutla calayhim aayaatuna aayadaha iyaga marka lagu dul akriyo kuwa gaalada ah bayinaatin iyagoo aayaduhu cadcad qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen laa yarjuuna liqaa'ana la kulanka iyaga aan rajaynaynen ka cabsanayn iiti waxaad keentaa biqur'aanin hayri haada qur'aanan kan ahayn keen aw badil ama dooriba kan oo meela ka badbedel waa dheeldheel bay sidaa u yidhaahdeen qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii aniga ima suuro gelayso an ubadilahu inaan qur'aanka ka bedelo min tilqaa'i nafsi xaggayga in attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay waxa la ii waxyoodun baan anigu raacayaa innii akhaafu anigu waan cabsanayaa in casaytu rabbii ilaahayga haddii aan caasiyo waxa aad sheegaysaana aan sameeyo waxaan ka cabsi qabaa cadaaba yawmin cadiim maalin weyn cadaabkii madaxadaygii dadka gaalada iyo kuwa waxyiga aan u soo jeedin ibleyskuna waxaa xun uu u qurxiyey halkan ilaahay waxa uu ka xusayaa sidee waxyiga iyo shaygii noloshooda ahaa ee la doonaya inay raacaan siday ugu dheeldheelayaan siday u madaxadaygayaan cidda ay hadalkan ku leeyihiin waxa weeye sayidu alawaliina waalaakhiriin ummadaha oo dhan iyo khalaa'iqda kii hormuudka wahaa ugu fadli badnaa nebi maxameda waxyiga ay ku dheeldheelayaan waa kalaamkii ilaahay oo kalaam walba ka fadli badan marka haddaba aayadahaasoo cadcad lagu dul akriyoon ishkaal iyo wax la bedelo iyo wax la dooriyo midna aan lahaynoo waadixa kolka lagu akriyo kuwaan ilaahay la kulankiisa rajaynayn baa odhanaya qur-aankan bedel ama mid kale keen sidaasay leeyihin marka halkan ilaahay waxa uu ku xusaa la kulanka aakhiro ayuu soo qaadaa iyo maalinkaa qiyaamaha cadaaba yawmin cadiim labadaa qofka xusuusan la kulanka ilaahay uu qiyaamaha hortegayo iyo abaalmarinta weyn ee halkaa taalla qofka xusuusani dheeldheelkanba lama yimaado nebi maxamed oo mawqifkaaga u caddee oo waxaad ku tidhaahdaa maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi aniga suuragali maaha inaan waxyiga wax ka bedelo suuragali maaha imana banaana waxaan raacayaa un maa yuuxaa ilay shaygaa la ii waxyoodunba raacaya mawqifka qofka muslimkaahina waa kaa haddee waxyiga iyo wax kale u joogsato waxyigunbuu raacaya sababta keenaysaana waxa weye dee noloshiisiina way ku jirtaa iyo caalamkuna way ku jirtaa cadaaba yawmin cadiim maalin weyn cadaabkiina way kaga badbaadaysaa ummadda iyo insaanku guud ahaanba mawqifkaa nebi maxamed la faray calayhi salaatu wasalaam ayay tahay inaynu inaguna qaadano oo waxyiga sidaa nebiga loo faray inuu raaco unbaynu inaguna dee ku amrana 4 arrimood unbaad arkaysaa aayaadka aynu marayno ee duruustan in ay u badan yihiin
waxa aad arkaysaa iyadoo ilaahay uu ka hadlayo insaankan iyo dabeecadihiisa iyo mawqifkiisa iyo kiisa xun iyo kiisa wanaagsan bani aadamka waxa ilaahay uga hadlayaa laba arrimood oo aad arkayso aayaadka ka muuqanaya oo xayawaanka kale looga warbixin laayahay oo looga warrami laayahay midi waxa ay tahay iyada oo ilaahay uu u soo dejiyo waxyigan lilbashariyati walixayaati albashariya bani aadamkii iyo noloshiisa sidii uu qur-aanku u sixi lahaa taasi waa midda labaad aayaddaa hore ilaahay uu kusoo tilmaamay 14 insaankii in laga dhigay noolaha ama xayawaanka keliya ee ilaahay uu ku karaameeyo ku maamuusay adduunyadan inuu noqdo ka qaa'idka ka ah ee hogaaminteeda leh hogaamin fiican oo manhajkeedu waxyiga uu yahayna inuu sameeyo ayaa la faray oo la doonaya haddaba qaybtii hogaamintaa ku gaboodfashay runtii iblis uu hormuudka ka noqday baa ilaahay uu ka soo warramay xaaladooda markaa rasuul allahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo cidda hormuudka ka yahayna dadkii khaliifnimada iyo hogaaminta wanaagsan sameeyey baa ilaahay uu tilmaamay inay yihiin mawqifkaaga haddaba u cadee baa lalahaa dadka oo inaanad waxyigan adigu waxna ka bedeli karayn waxna ka doorinayn dadka u sheeg qul waxaa tidhaa low shaa allahu rabbi hadduu doono maa talawtuhu calaykum dushiina kumaan akhriyan qur-aankan aad diidan tihiin walaa adraakum bih idinmanaan ogeysiiyeen ee ilaahay baa doonay inaan idinku dul akhriyo oo aan idin gaadhsiiyo waxyigan faqad labistu fiikum dhexdiina waxaan joogay cumuran cumri iyo muddo dheer oo 40 sano ah min qablihi qur-aanku intaanu soo degin ka hor afalaa tacqiluun oo miyaydaan waxba garanay ayaa ilaahay uu leeyahy sidaa ku dheh insaanka ilaahay isagaa yaqaana doodoodu siday kusoo abjarmaysa iyo sida laga garhelayana isagaa ogsoon dareenkoodu heerka uu gaadhsiisan yahay wuu dee yaqaanaa markaasoo qur-aanka arkaysa ereygaa qul ah iyadoo uu soo celcelinayo oo laleeyahy nebiga sidaa dheh intuu nebigu adduunyada ka tegayna qofka muslimka ah unbaa amran inuu isaguna ereygan iyo daliilkan isticmaalo sidii nebiguba uu isticmaalayay haddii arrinkay kaala doodeen uu yahay waxyigan samaawiga ah iyo adiga ayaa keenay waxaad ku tidhaahdaa war waxyigan haddii aanu ilaahay doonin inuu igu soo dejiyo dee idinkumanaan dul akhriyeen walaa adraakum bih idinmanaan ogeysiiyeen laakiin ilaahay baa amray inaan ummadana gaadhsiiyo kuna dul akhriyo oo caqlibaa ilaahay uu u sameeyey insaanka markaa caqligii ayaa ku filaan la marka la eego xagga irshaadkiisa iyo hanuunkiisa afalaa tacqiluuna dee waatan la yidhaha la baraarujinaya markaa caqligii ayuu waxyigani hagayaa oo u saxayaa toosinayaana oo caqli wanaagsan oo nuurle ka dhigaya waxyigani inuu ilaahay xaggiisa ka yimid oonaan anagu samaysanin daliil baan idinku hayaa idiin sheegaya dee dhexdiina muddo dheer baan joogay oo ilaa 40 sano ayuu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam intii aan rasuulka laga dhigin ka hor 40 sano oo aan idin dhex joogay wax waxyihoon sheegtay iyo wax warahoo igu soo kordhay midna may jirin arrinkan maanta aan idiin sheegay inuu run yahay bay taasi idin caddaynaysa ila waxaa la yidhi beentaada hore runtaada dambe ayay dishaa been hore oon idiin sheegay kol haddaanay jirin dee tan maanta waa rune qaat waanay ka garaadeen runtii gaaladu taa oo ninka la yidhaahdo abu sufyaan nebiga xigtadiisa ah calayhi salaatu wasalaam madaxda gaaladana ka mid ahaa ayaa yurub taasuu tegey ardu shaam meeshii la odhan jiray reer yurub halkaas iyagoo degan ayuu safar ku tegey ninkii meeshaa madaxda ka ahaa gaalada ayaa yidhi ninkana carabta ka soo baxee nebiga sheegtaynu maqallay ciidima ka joogtaa xigtadiisa in abi sufyaan la yidhaah oo qolo safara wata ayaa jooga baa layidhi qoladiibuu u yeedhay oo waxau idhi war bal ninkan xaaladiisa iga warrama su-aalo aada u fara badan buu weydiiyey ay ka wada jawaabeen isaguna uu wada sharxay su-aalihii waxaa ka mid ahaa ninkan idin yimid in hal kuntum tattahimuunahu bilkadib qabla an yaquuna maa qaal wax beena miyaa ku tuhmi jirteen intaanu nebinimada sheeganin ka hor abuu sufyaan waxau yidhi wax beena kumaanaan aqoonin hadda madaxdii gaaladana waa ka mid ahaa
markaa ninkii Hiraqle waa hadlay oo waxa uu waa ninkii reer Yurub ka mid ahaa hadlay oo waxa uu halkaa waxa iga cadaatay intuu been dadka u sheegi waayo inaanu ilaahay ka sheegay taasaan halkaa ka fahmay buu kol hadduu beentaba dadka ka daayay ilaahayna been kama sheegay marka ilaahay waxa uu ka sheegayaa waa run والفضل ما شهدت به الأعداء علينا فضلنا كعدو كمرخات كعوي جعفر بن أبي طالب مركي وحبشيدة تجي لقى أصحاب الكاو هجروتي كحيسي وحولها ده بقر كي حبشيدة وحولها بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته إلهي وحولنا قصوى صار الرسول أنو قرنا إلى رنتي سئي نسب كي سئي أمانتي سئي فمن أظلم أبو إلهي رياك كقردرا ممن افترى على الله كذبا قفك إلهي بيانكو أبورتي أو كذب بآياته أما إلهي آياته سبينيه إنه ورث وحوي لا يفلح المجرمون تنبيلياش من الليبانان وعالكن إلهي وكحصيات دي ظلمي قوحا لا إلهي يقردرده والنوعية وانا كالهير خوغسي حمان بضاني وحوي قفك بين يقردر إلهي ورب ليري آياته سنبينيه وحانو ربي أورانين كشاكي وكان نبي محمد عليه الصلاة والسلام يساقو ديتا وكبري لكن تدكالي او آياته اي كسو دكتيباتيره عامية ليسانة وقفك الدين تدكا وقدقية وحان دين هين ونين مسيلمة الكذاب ليلاباتيري يربنو حنيفة ايها عربت الجيسي دبري ايو قبصدي نبي قو وراقو صدري عليه الصلاة والسلام نبي نمو شاكتين كاسي وحاول لي أدوغنا رسولك قريشات باتها أنوغنا هربنو حنيفة قلب أيضا ليلابا رسول كودي بارها يدول كنوي لو قيبتي هاي يينان استسود الدخول نبي مركا عليه الصلاة والسلام ورقد بودر يسقال رسولك إلهي بورقد ذلك السعطة إلى مسيلمة الكذاب منك مسيلمة ليلا بيان لها أيكو سعطة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده تلك إلهي بالله وحول حلسين يعد وطارة يكمل أدومه ninbaa u tegay camrul caas la oran jiray saaxiib ahaayana waqtiga islaamin ayaa musaylima u tegay waxa uu musaylima ku yiri maxamed maxaa akhriyaa war soo kordhiyay inkii markaa camar la oran jiray waqtiga islaamin baa yiri suurad yar oo gaaban oo aad u la yaab leh ayaa ka maqlay iyagoo akhriya wal casri inna al-insana la fi khusr suurada ayaa ka maqlay bal aniga bay dhageysa bur qudhigaygu quraan baan keenay yaa wabar inna anta udunani wa sadrun wa sa'iruka hafrun naqru wax noocaas oo kalimaado aad u liita ayuu ninkii gaalka ahaa nabinimada sheegtay ayuu akhriyay oo xayawaanka qaar kaga waramayo bal ka waran buu Camar oo siday kula tahay dee aduguba waad iska garanaysaa buu inaan anigu ogahay inuu hadalkaaga sibeeyo adiga laftaada iska garanayo kuma sharxayo buu ويعبدون من دون الله انت إلهي كسوكيس وحي عابديان ما لا يضرهم وحان وحبكوا دبي ولا ينفعهم وحلان كتري ويقولون وحي ورنيان هؤلاء كواس شفعاؤنا عند الله وكوينو إرقين إلهي يكتيس قل وحاصل هذا أتربئون الله إلهي ما وحاو ورميسان بما لا يعلم وحانك هو أغاني في السماوات ولا في الأرض سموين في يدولك سبحانه وتعالى إلهي ما كهوفا وكل الزهر وكسرية عما يشركون وحل عبديسان وما كان الناس ضدكم ما يهين إلا أمة واحدة أمة كلية ضدكها يا وقت جهر فاختلفوا دبدوا يسيدين ويسويدارتين ولولا كلمة سبقت من ربك كلمة إلهي حقي سكهر مرتها داري شرين لقضي بينهم وحلقوك لحكم لها ضدك فيما فيه يختلفون وحيث كنت يدينهين وقفت حق وضنا ولا بدباد لا كهرنا ولا هلاقنا قد يدو إن يتهي عباده أي هل كان إلهي وكحصي عد كلا ولا راعه إلهي هديه وقفك تغيو عد كلا وهقان سمية أطوانا النقنية إذا طوامها كامدة هل كان إلهي وحا وكحصي فالحمد أوليه فالله ياب أبو إلهي الله ياب إذا عندي بيرداف طوانا والهين ayay caabudeen kalama ay ka qaateen shucuur iyo dareen ay u yeesheen waxaanay leeyihiin ilaahay agtiisa shufacayhi shufacadu waa ergo macnaha ilaahay waa noo ogolnahay ilaahnimo kuwana waa dar ka sokeeyo nagu dhaweynaya bayda
halkaasaad ka arkaysaa siday u liitaan. kolka nebi maxamed oo xujeeya waxaad ku tidhaahdaa ilaahay ma waxaa u warramaysaana u sheegaysaa waxaanu ku ogeyn samooyinka iyo dhulka. ilaa waa u qiraysaa samooyinka iyo dhulka inuu isagu abuuray. ilaahyaashana caabudaysaanna wuu diiday oo ma jiraan buuli. idinkuna waa jiraadaan leedihiin ilaahyaashaas. haddaba ilaahay ma aqoon dheeraadaa idinku ka leedihiinoo cilmi aanu haynba haysaan miyaa? subxaanahu wa tacaalaa camaa yushrikuun sidaa dhaha. cidda haddaba caabudaysa cid kale ama distoora ku caabudda ama nidaam amaba ha dul yuurursata ama ha barideen. ilaa cibaadadu noocyaashaasoo dhan bay kala leedahay tawxiid aluluuhiya iyo tawxiid alxaakimiya. cidda meel kaga dhacaysa wuxuunay la mid tahay dadkaa tilmaamaya waxyaabo kale inay caabudayaano ilaahay ugu dhowaanayaan. qofkaasi waxa uu sheegayaa inuu isagu leeyahay aqoon aanu ilaahay lahayn kol haddii uu dee tilmaamaya insaanka inuu nidaam u dejinayo. innaguna waxaynu leenahay subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun. khilaafka iyo ummadda midnimadeeda inay midnimadu asal ahayd oo nebi nuux wakhtigiisii wixii ka horreeyey dadku ay mid ahaayeen baa ilaahay halkaa uu ku tilmaamay wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxida. sidaa darteed midnimada inay ilaaliyaan tawxiidka iyo shirkigana tawxiidka asal ahaa. ilaahay baynu baryaynaa tawxiidka inuu inagu toosiyo oo uu inagu hagaajiyo. aayadaha waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay arrimo dhowra uu kaga hadlayo oo tilmaanta insaanka iyo mawaaqifta uu bani aadamku leeyahay iyo xaaladiisa guud ahaanba ilaahay uu ku sawirayo si buuxda ugu tilmaamayo. iyadoo runtii insaanka ka warbixinta laga warbixinayo oo aan laga hadlaynin xayawaanaadkii kale iyo noolihii kale dhulka kula noolaa. ka hadalkiisaasi arrin gaara ayuu xambaarsan yahay, waayo ujeeddo gaaraa laga leeyahay isaga. oo waxa uu yahay caalamkan aynu ku nool nahay iyo dhulkankii khaliifka ku ahaa ee ilaahay uu ku abuuray camirayay, lana doonayo hogaamintiisa iyo khilaafadiisu inay noqoto tii ku soconaysay waddada rususha. waxaa loo diidan yahay in hogaamintiisa uu yeesho shaydaanka iyo dadka dawaaqiidda ah ee isaga ka amar qaadanaya. arrinta labaad ee runtii insaanka in badan qur-aanku uu xusaya waxa weeyaan lianna hada alqur'aan unzila lilbashariyati walixayaati albashariya. qur-aankan baa loo soo dejiyey bashariyadda iyo noloshooda si uu u saxo oo u dooriyo. markaa bal qur-aankan mowqifka had iyo jeer ay iska taageen kuwa diiday ilaahay waa ka warramaya. wayaquuluuna waxay odhanayaan buu ilahay yidhi lowlaa unzila calayh, nebiga maa lagu soo dejiyo aayatun min rabbi, mucjizo xagga ilaahaysa ka ahaatay. faqul waxaad tidhaahdaa inama algaybu lilaah, shayga qeybkaa ilaahay baa iska leh ee maqan. faintadiruu suga, innii macakum, anigu miciina min almuntadiriina baan ka mid ahay kuwa idinla sugaya. ilaahay waxa uu leeyahay tabaaraka wa tacaala, nimanka gaalada ahay waxay odhanayaan marka qur-aankan kariimka ah iyo rumaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam lala soo qaado, waxaanu doonaynaa annagu aayad iyo mucjizo gaar ahoo aanu calaamadsanay in la siiyo lagu soo dejiyo si aanu u rumayno. arrintaasi wuxuunay tahay debacanaad unbay iska tahay, laakiin nebi maxamed ummadda uma imanin isagoo bilaa mucjizo ah. ee mucjisooyinkiisa ugu waaweyn waxaaba ka mid ah dee qur-aankan kariimka ah ee la yidhi bal hadda isaga oo kale keena ama suurad ka mid ah ee ay keeni kari waayeen. ilaahayna waxa uu aayad kale ku tilmaamay oo uu yidhi wamaa manacanaa an nursila bilaayaat ilaa an kadaba biha alwaluun. aayadaha ay codsanayaan inaanu soo dirnaanu soo dejinno waxa noo diiday kuwii horaa beeniyo waa la halaagay, kuwana hadday beeniyaan waa la halaagi doonaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay uu ku yidhi faqul inama algaybu lilaah faintadiruu innii macakum min almuntadiriin. qeybka ilaahay baa iska leh, ilaa aayaddan maqan iyo mucjizada ay codsanayaan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay xaggiisa ku maqan ee isagu uu la gaarka yahay. marka arrintan waxaa ku sugan imhaalun fii tayi ataxaddi wa fii tayi
nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu leeyahay nimankan waxaad ku tidhaahdaa ila suga aniguna waa sugaya waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiina buu ilaahay yidhi annaasa dadka raxmatan naxariis min bacdi daraa'a massathum dhibaato ku dhacday dabadeed idaa lahum waaba iyagoo uu sugnaaday makrun khiyaamo fii aayaatina aayadaha iyaga waaba iyagoo kolkiiba shirqoolaya ayuunbaa soo baxay soo mudh odhanaysa qul waxaad tidhaahdaa allaahu asracu ilaahay baa adagoo deg deg badan makran xagga abaalmarinta iyo shirqoolka inna rusulanaa malaa'igtayadu yaktubuuna waxa ay qorayaan maa tamkuruun shirqoolka aad samaynaysaan bay qorayaan insaanka kuwoodii liitay dabeecad xumadoodii baa weli ilaahay uu kasii warramayaa iyadoo ilaahay uu yahay ka barwaaqeeya nicmadana bixiya marka insaanku nicmadaa uu qabo iskana haystuu leeyahay waxa uu yahay midaan ilaahay xusuus u lahayn intuu xusuus yeesho iska daayo waxaabuu ku kacayaaba faldembiyeed oo waxa uu isku dayayaa inuu aayaadkii ka hor yimaado oo beenintii oo keliya aanu ku joojinina makri uu sameeyo makriguna waa qofkii oo cid kale wax la maagan dhibaato ah wixiina ka qarinaya markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow allaahu asracu makran xagga makriga ilaahay baa adagoo deg deg badan oo kan had iyo jeer xumaanta usoo xadhig maleegaya aayaadka iyo islaamka usoo xadhig maleegaya wuxuu ka qarinayaa dadka muslimiinta ah laakiin ilaahay miyuu ka qarin karaa kama qarinaya ilaahay wuu la socdaa xaaladiisa abaalmarintuu ilaahay isaga la maagan yahayna ma oga markaas ta ilaahay baa waxa ay u eg tahay makrigii oo kale sidaa darteed baa ilaahay uu leeyahay qul illaahu asracu makran waabuu sii tilmaamay ilaahay oo waxau ihi dee rusushayadii baaba qoraya malaa'igtii ilaahay uu xil saaray ayaaba qorayaba inna rusulanaa yaktubuuna maa tamkuruun huwa ilaahay aladii ilaahay weeye yusayirukum idin ahaysiinayey ee idin socodsiinayay fi lbari beriga iyo walbaxri badda labadaba xataa idaa kuntum markii ahaateen fi lfulk doonida markii aad dhex marayseen wajarayna bihim dadkii ay la socdeen doonyihii biriixin tayibatin dabayl aada u wanaagsan ay kula socdeen wa farixuu biha ay kuna mafsuudeen dabayshaa iyo socodkii doonida jaa-at haa doonyaha waxaa u timid riixun caasib dabayl wax burburinaysa wa jaa-ahum lmawj mawjadiina waxay ka timi min kulli makaanin dhan walba wadannuu waxay maleeyeen annahum uxiita bihim iyaga in la koobay oo halaag lagu koobayo markaasay dacaw llaaha ilaahay baryeen mukhlisiina iyagoo u gooni yeelaya lahu ilaahay addiina baryada iyo cibaadada qaa'iliina iyaga oo leh lain anjaytanaa min haadi ilaaha waanu dhaaranay haddaad naga nabadgeliso cawaasiibtan lanakuunanna waxaanu noqon doonaa oo aanu noqon min ashaakiriina kuwa kugu mahadnaqa falamaa anjaahum markii ilaahay uu ka nabadgeliyey idaa hum waaba iyagoo yabquuna fi lard dhulkii kharibaya bikayri alxaqi gardaro ku fasahaadinaya halkan waxa uu rabbi ka warramayaa subxaanahu wa tacaala insaankii liita aan ogolayn inuu ilaahay addoon u noqdo wakhtiga uu dhibaataysan yahay haddana inuu ilaahay yaqaano oo si toosa ugu soo xidhmayo waxaa halkan markaa uu ka warramay addoommaha uu sakhiray dhulka iyo badda labadaba ee iska gooshaya iska mushaaxaya si ay muraadyadooda u qabsadaan baddii baa si gaara ilaahay uu sii xusay waayo xaaladdeeda ayaa sii khatarsan cabsida insaankuna dee aad bay u badan tahay wakhtiga uu badda ku jiro sida aynu garanayno ee ciddii martayba ay fahmayso doonyihiibaa dadku ay fuuleen baddii baana ayay la dhex marayeen aadna way ugu farxeen iyadoo dabayl wanaagsan oo neecaw ah ay riixayso gaar ahaan wakhtigii hore ee matoorka aanay lahayn ee shiraaqa ay lahayd waxay ku soconaysay dee waa dabaysha ah iyadoo dabayshaa fiican ay iska waddo ayaa waxaa timid mid caasif oo doonidii kolba dhan u riday oo biyihii ay hareeraha dartay doonidii mawjadiina markaasay kusoo farabadatay wadannuu annahum uxiita bihim iyagiina way baqdeeno waxay is idhaahdeen maanta waa halaag baa laydinku koobay
goortaasay ilaahay usoo noqday inay baryeen ilaahay haddaad naga nabadgeliso tan waxaanu noqon doonaa kuwa kugu mahadnaqa laakiin markuu ilaahay nabadgeliyey markiiba fasaad ay dhulka fasaadinayaan baa ay isu diyaariyeen qisadani ragga ay ku dhacday waxaa ka mid ahaa Cikrimatu bnu Abi Jahl oo nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii Maka uu qabtay cadowga uu ka saaray dee dadka badankeedu way isdhiibeen dadka badankoodu laakiin Cikrimatu bnu Abi Jahl iyo qoliyo uu wato waxay u carareen xagga iyo Yaman badda ayay dooni u raaceen baddii baa markaa ku kacday mawjadii baa isla rogtay kolkii dabeedna ay barigii baddii dhex marayaan dhibaatadaasi ay qabsatay ayay ilaahay baryeen si toosa bay u baryeen kolkaasaa waxa uu yidhi waxaan ogahay ilaahay hadduu halkan igu badbaadinayo inuu berrigana igu badbaadinayo wardadow ilaaha badda igu badbaadinayaa dee berrigana isagunbaa igu badbaadin doona ilaahay waxaan ballan kugu qaaday haddii baddan aad igu nabadgeliso maanta berriga markaan tago inaan ku rumeeyo rasuulkii aan gacan qaado nebi maxamed dabeed ilaahay waa badbaadiyey baddii buu ka nabadgalay berrigii ayuu tegey ninkii Cikrimatu bnu Abi Jahl odhan jiray baxsaday kolkaasuu u tegey rasuulkii sala allahu calayhi wasalam qisadiina uga warramay dhacdadaasi waxayna tusinaysaa waa tusaale waaqiciya oo muuqanaya taariikhdu ay sugayso oo macnahan aayaadku ay ka warramayaan runtii ku sugan weeye insaankii haddaba inuu sidaa noqdo ma aha oo xaaladaasi waa mid aada u foolxun ilaahayna ummadda uu noocaa samaynaysa waa ku eedeeyey dembiilayaal baana yihiin falamaa anjaahum idaa hum yabquuna fi lardi bikayri alxaq mar alla markii uu nabadgeliyey bay dhulkii fasaadiyeen huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxr labadaba ilaahay isaga ayaa idin socodsiinaya beriga iyo badda labadaba isaga ayaa idin sakhiraya isaga ayaa yaxfadukum wayakla'ukum bixiraasati waanu idinku ilaalinayaa badda iyo berrigada siyaabuhu ilaalinaya ilaahay uu xusaa waxau ihi xataa idaa kuntum fi lfulk markaad doonida fuushaan wajarayna bihim biriixin tayiba dabayl aada u wanaagsanna ay haystaan ay socoto wa farixuu bihaa ay ku farxeen baa jaa'atum riixun caasif dabayl aada u adag ay u timid wa jaa'ahum almawju min kulli makaan dhinac walbana mawjadii baa kaga timid wadannuu annahum uxiita bihim in la koobay bay u maleeyeen goortaasay ilaahay baryeen iyagoo cibaadada u gooni yeelaya waxaad ka warantaa haddaba qofkii muslimka sheeganayay haddii uu waktigaa dhibaatadu ay ku adkaato dad u yeedho ama dhintay amaba aan noolayn oon waxba u qaban karaynin dee dhibkeeday leedahay ilaahay baa xataa gaaladii ka warramay wakhtigaa dhibku uu ku adkaado in cidda ay si toosa u baryi jireen ay ilaahay ahayd qofka mu'minka ahina goor walba baryada ilaahay inuu badiyo waa daruuri weey oo mar kastoo baryada ilaahay aad sii badiso waxaa kaa muuqanaya addoonnimada xaggii addoonnimada ayaad usii dhowaanaysa ilaahayna wuu ku farxaa mar kastoo la baryo halka bani aadamku uu baryada badan ka cadhoodo markaa in baryada ilaahay la badiyo oo sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu dagaal galayo ilaahay buu baryi jiray isagoo hubkiisii iyo diyaargarowgiisii wata hadduu cibaado galayo hadduu cibaado gudanayo hadduu seexanayo hadduu soo tooso dee wixiisu waxay wada ahaayeen dikri iyo duca iyo baryo qofka mu'minka ahina sidaasaa ay tahay markaa inuu ugu daydo rasuulka sala allahu calayhi wasalam si manhajkii rususha ugu socdo waxaad arkaysa iyadoo ilaahay uu ka warramay dabeecadaha insaanka aan addoonnimada rabbi ogolayn inuu ilaahay addoon u noqdo qofkaa dabeecadihiisu waxaa ka mid a inuu yahay qof dee indha ku garaadlaa shucuurkii iyo dareenkii iimaaniga ahaa iyo aragtidii dheeraydna way ka maqanta waxyaabaha ilaahay uu ku eedeeyey waxaa ka mid ahaa inta uu ladan yahay nicmada ilaahay uu haysta inaanu rabbi xusuusanin shukrigiisa iyo mahadnaqa midnaba aanu la imanin marka laakiin dhibka uu ku adkaado inuu ilaahay xusuusto keliya ficilka noocaasa baa ilaahay uu ka waaninayaa rabbi waxau ihi yaa ayuha nnaasu dadow inamaa bagyukum gardarradiinu calaa anfusikum naftiinnun bay dul saaranta qofka cid ku gardaroonaya waa wax isaga un dul saaran
mataaca alxayaati addunya noloshan adduunyada raaxadeeda darteed baa waxu dulmaysaan tafcaluuna dalik arrintaa waa samaynaysaan liajli mataaci alxayaati addunya noloshan adduunyada si aa usii wadataan oo ugu sii fogaataan uma intaa kadib ilaynaa marjicukum meeshaa usoo noqonaysa waa xagga yaga fa nunabi'ukum waxaanu idiin warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluun camal waxaad samaynayseen ilmo bani aadan baa ilaahay u baaqaya kooda gaalka ah iyo ka muslimka ah labadaba waxa ilaahay uu ka waaninaya waxa la yidhaahdo albaqi baqigu waa gardarrada iyo xadgudubka dee cidda uu qofku ku xadgudbayaa naftiisana way noqon kartaa dadkana waa ku xadgudbi karaa xaqana wuu ku xadgudbi karaa xadgudubku sidiisaba waa wax islaamku uu diiday oo xuquuqdii ilaahay uu lahaa iyo xuquuqul insaankiintaba meel ka dhac buu xadgudubkaasi ku keenaya haddaba qofku markuu xadgudub sameeyo waxa ilaahay uu xusay dee xumaan isaga kusoo noqonaysa inay tahay calaa anfusikum buu lahay oo nebigu baa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cuqubada ugu degdeg badan macnaha abaalmarinta shayga abaalmarintiisu ay ugu degdeg badan tahay ee dunuubta ka mid ihi ee ilaahay cuqubadiisa adduunyadaba qofka uu ku ridaa waxaa ka mid ah oo waxyaabaha ugu soo degdeg badan ka mid ah gardarrada iyo qaraabogoysnimada oo qofkii markuu qaraabogoys noqdo xigtada intii ku dhoweyd ayuu goynayaa xumaana dhex dhigaya kam gardarrada iyo baqiga samaynayaana bulshada inteedii kale bulshadii markaa waxay noqon doontaa mid aan wada socon cudur kala yaac la yidhahdaa uu ku dhaco markaa qofku intanuu adduunyada joogo inuu iska ilaaliyo maradka iyo cudurka noocaas isagay dan u tahay sidaa ilaahayba uu tilmaamay waxyaabaha ku kalifaya waxaa ka mid a qofkan mataaca alxayaati dunya isagoo noloshan adduunyada sii raacaya kuna sii dheeraanaya waxaanu lahayna baadi doonaya ilaahay baa yidhi meeshaa usoo noqotaa waa xagga yaga waanaanu idinka xisaabin doonaa xumaan waxaad samayseen masal iyo tusaale ayaa ilaahay uu bixinaya haddaba tusaalahaasoo adduunyadan dadku ay darteed xumaanta u samaynayaan ee ay ku sii dhexallaabayaan ayaa bal isaga ayaa rabbi abuuro tusaalaheeda yaqaanee tusaale cad oo noolood arkayso ayuu ka sameeyey adduunyada iyo xaaladdeeda ilaahay waxa uhi innamaa mathalu lxayaati dunya noloshan adduunyada tilmaanteedu kamaain ka nabaatin ambata bimaa waa daaq ku soo baxay biyahaasoo anzalnaahu min asamaa xagga kore aanu ka soo dejinnay biyahaasoo fakhtalada bihi isaga dartii uu isku dhex darmuu isku baxay nabaatu lard dhulka wixii ka soo baxayay oo mimaa ya'kulu nnaasu walancaam dadka iyo xooluhuba wixii ay cunayeen xataa idaa akhadat ilard dhulkii markii ay qaadatay zukhrufahaa bilicdeedii wazayanat ay quruxsanaatay wadanna ahluhaa dadkii dhulka joogayna ay maleeyeen annahum qaadiruuna calayha inay karayaan ay goosanayaan nicmadan iyadoo xaaladda ay ku sugan yihiin ataahaa amrunaa dhulkii waxa u yimi halaagayagii iyo haamaday lagu soo daayey leylan aw nahaaran habeen ama maalin wajacalnaaha xasiidan daaqii iyo wixii nicmo dhulka ka baxay waxaanu ka yeelnay mid gooda oo nag ah kaan lam tagna bilamsi iyadoon shalayba jirin baa la moodaa oo waxbaba ka bixin kadaalika sidaasaanu nufasilu laayaat aayadaha idinku caddaynaynaa buu ilahay yidhi liqowmin yatafakkaruun dad fikirayaan sidaa tusaalaha ugu caddaynayna qur-aanka dhexdiisa rabbi waxa uu dadka u sameeyaa tusaalayaal oo shaygii loo sheegi lahaa uun ayuu tilmaan uga bixiyaa ay wax ay arkayaan markaa ugu daliishadaan ay tilmaan uga dhigtaan wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaashan qur-aanka dhexdiisa waan yeelayaa buu ilahay yidhi laakiin cidda fahmaysa dhadhan weynna ay u samaynayso waxa weeye dadka caalimiinta ahe cilmiga ilaahay uu furay ee garaadkoodu aada u sarreeya iyo aqoontoodu masalkaasina qur-aanka aada buu ugu badan yahay wixii ilaahay uu dadka u tilmaamaya hadduu wanaagsan yahay iyo hadduu xun yahayba masalkaasi ugu bixiyaa
si uu u akhriyo masalkana u garto qofkii mutacalimka ahaa iyo kii jaahilka ahaa kii qaariga ahaa iyo kii umiga ahaa ee waxba akhriyayn labaduba adduunyada xaaladeedu waxay la mid tahay buu ilaahay yidhi daaq iyo nabaad bilicsan oo hawray oo biyo aan xagga sare ka soo dejiyey ku baxay buu ilaahay yidhi daaqaasina ka dadka iyo xooluhu cunaanba wuu isugu jiraa oo dhulkii oo kolkii hore abaar ahaa ayaa ilaahay uu roob ku shubay markaasaa beerihii ay baxeen khudraddiina ay baxday daaqii xoolaha iyo caleentiina ay baxday iyadoo barwaaqadaa lagu sugan yahay dhulkiina sukhrufkeedii uu qaatay oo uu isqurxiyey oo aroosba uu shabaho dhulku ile qofka arooskaa quruxdiisa iyo bilicdiisa dadku way ku mabsuudaan raallina waa ka yihiin waanay ku jecel yihin dhulkiina marka ay isqurxiso ee caleen iyo daaq aada u badan oo wanaagsan oo ay hawrto kolkaa dadku raalli bay ka yihiin waanay jecel yihiin waanay u quruxsan tahay sidaasoo kale iyadoo dhulkii ah oo u aroos dadkii deganaana ay malaynayaan annahum qaadiruuna calayha inay dee goosan karayaan nicmadanoo ay u aayayaan ayuunbaa waxa yimid buu ilahay yidhi amarkayagii amarka ilaahay uu wax ku halaagaa dabayl buu noqdaa haamaday buu noqdaa hanfina waa noqdaa beerahana uu adiga arkay oo siday u wanaagsan yihiin ayuunbaa belo lagu sallidaa mararka qaarkood habeen iyo maalin midunbuu yimid dhulkiiba waxa uu ka yeelay xasiidan xasiidku waa wax maxsuud ahoo la gooyey dhulkii iyo nicmadii la eeganayay intuba nag bay noqotay tusaalaha ilaahay uu ka bixiye waxa weye kaan lam taqna bilams iyadoo shalayba jirin baad moodaa bal dadkii barwaaqadaa ku noolaa ee dhulkii haddana arkay iyadoo sidaasi deg dega isugu beddeshay waxaad garan karaysaa dareenkoodu nooca uu yahay iyo runtii sida ay u warwarayaan qofka adduunyadan isku halleeyey iyo nicmadeeda ehelka uu dhex joogo iyo dadka uu maamulka u yahay iyo maalkiisa iyo guryihiisa qofka iskaga raaxaysanaya ee dabeedna mawdka uu ka soo qabto amaba iyadu mar keliya ka baabaada tusaalihiisa iyo xaaladiisa ayaa noocan oo kale ah ilaahay baa halkaa waxa uu ku caddeeyey tafsiil inay tahay aayaadka uu dhigdhigay oo uu kala caddeeyey amsaasha iyo tusaalaha sidaas darteed baa ilaahay waxa uhi liqawmin yatafakkaruun nufasilu laayaati liqawmin yatafakkaruun qof fikiraya iyo dad garaad leh oo wax dhuganaya oo dhadhaminaya waxyiga ayaanu sidaa ugu caddaynaynaa tusaalaha wallaahu yadcuu ilaahay dadka waxa ugu baaqayaa ilaa daari salaam daarta nabadgelyada oo jannada ah wayahdi man yashaa cidduu doonana wuxuu ku hanuuninayaa ilaa siraatin mustaqiim waddo toosan adduunyadaa ilaahay uu soo sheegay waxa ugu baaqa dadka oo ugu yeedha in ay dadku isku dhigtaan oo ay iyada darteed u lumaan ay u gardaroodaan shaydaan baa ugu yeedha isagaana shaqadiisa ay tahay inuu dadka ilaa tanaa ku waaraysaana xejista ilaahayna waxa ugu yeedhayaa dadka daarta ay ku waarayaan iyo jannada oo ah hoyga nabadgelyada daaru salaam nabadgelyadaasi halkan kuma hayno oo adiga arkayo caalamka ama idaacad ka dhagayso ama telefishon iyo meel ka eeg waxaad arkaysaa waddan walba in la isku haysto oo dagaal iyo qas iyo balaaya ka soconaya dee dadka mufsidiinta ahina kolley waa shaqadooda dee iyaga horseed ka ah halkaa laakiin dhibaatooyinka iyo warwarka iyo baahida iyo duruufta maanta tan taalla ah daaru salaam oo jannada ah kama jirto ilaahay haddaba taasuu dadka ugu yeedhaya qofka uu doonayana siraad mustaqiima buu ku hanuuninayaa waddadii toosnayd ee loo mari lahaa daaru salaam waxaa loogu magacaabay oo kale dee nabadgelyana waa leedahay hambaliyada la isku hambaliyeynayo assalaam iyo nabadgelyana waa dhexdeeday taallaa oo waxay maqlayaan qiilan ilaa qiilan salaaman salaaman qowlkooda iyo waxa lagu salaamayo waa wada salaam nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay habeen baan arkay manaam oo malakul jibriil iyo mikail ayaa yimid oo xaggayga dambe istaagay anigoo hurda midiba kii kale ayuu yihi bal nebiga iyo arrimihiisa bal tusaale u samee way la hadleenoo waxay idhaahdeen tusaalahaagu adiga iyo ummadaada waxa uu ka dhigan yahay nin boqor ah oo guri dhisay gurigaasina guri kasii dhex dhisay sii gaar ahoo aada u wanaagsan casuumadna waa ku sameeyey
cidna wuu diray oo waxau idhi bal casuumadan dadku ha yimaadeene u yeedh dadkii way qaybsameenoo qola casuumaddii bay soo ajiibeen qolana way diideen haddaba ciddaa guriga dhistay tusaalihiisu waa ilaahay gurigaa weyne uu dhisayna waa islaamka guriga gaarka ah ee qaaliga ah ee kusii dhex yaallaana waa jannada haddaba nebi maxamed oo aduguna kii ilaahay uu diray baa tahay ee dadka u yeedhayay qofka ku yeelaa islaamnimada ayuu gelayaa qofka islaamnimada galaana jannaduu gelayaa ka jannada galaana casuumaddaasuu wax ka cunaya ilaahay baynu baryaynaa inuu inaga yeelo kuwa dambe ee islaamnimadana sidaa quman u gala jannadana gala casuumaddaa ilaahayna ku waare ee cuna ilaahay kuwaa inaga yeelo derisku halkaa inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu